Soomaalidu waxa weeyaan dad qab leh ama isla weyn. Sir John Kirk oo ahaa qunsulkii Ingiriiska u fadhiyi jiray jasiiradda Zanzibar sanadkii 1870 ayaa waxa uu ka wareeray sidii awooddii Ingiriisku ay wax aynkaasi u cabsi gelin weyday Soomaalidii. Mas'uuliyiintii Ingiriiska ahaa ee bariga Afrika oo Soomaalida kula kulmay gobolkii la odhan jiray Jubaland dhammaadkii qarnigii 19 ayaa waxa raali geliyay oo ay ka heleen Soomaalidii ay arkeen. Sir Arthur Hardinge oo isna Zanzibar ka noqday qunsulkii Ingiriiska ayaa waxa Soomaalidu sida ay u xaali jireen uu la jecelaystay oo uu kala mid dhigay sidii dadkii sarsare iyo caaqiladii dadkii Ingiriiska iyo Scottishka ahaa ay waayadii hore u noolaan jireen. waxaana uu ku tilmaamay Soomaalidu inay sifooyinkan lahaayeen oo waxa uu yidhi horta waxay ahaayeen dad raganimo leh culumada da'da waaweyn ee shuyuukhda ah iyo bidaartoodu sida qaab kale ee ay u go'day iyo gadhka timihii ciroobeen ee caddaaday muuqaasi sida uu yahay ayaa waxa uu Sir Arthur sheegay inay u ekaayeen uun beeraleydii Ingiriiska. indhahooda saafiga ah iyo fahmadooda degdega badan iyo eegmadooda ayaa waxa ay ka soo jeedeen nolol caafimaad badan oo aanay waxba shaashaynin sida waxyaabaha dadku qaataan ee tamarta lagu kiciyo. dadka Soomaalidu fikrad ahaantay ayaa waxa uu yidhi waxa weeye dad aan si naba loo agdhigi karin dadka degan qaybtani Afrikada ah haddii ay tahay maskax iyo geesinimaba. waxa ay Soomaalidu ka yimaadeen dhinaca waqooyiga ah buu yidhi iyagii oo duulaan ah markaasay kiciyeen oo ka wadeen dadkii iyaga dhulkaasi uga horreeyey oo kala ah gaala iyo baajuun. ma aha buu yidhi dad ka baqaya qoryo iyo hub loo qaato. wax yar muddo ka dambaysay wakhtigii Sir Arthur Hardinge ayaa Sir Charles Eliot oo ahaa guddoomiyihii Ingiriiska ee bariga Afrika ayaa waxa uu faallo ku sheegay in Soomaalidu ay iyaga qudhoodu isku arkaan kuwa ama la mid ah Ingiriiskii ama kaba sii sarreeya. la soco qaybta labaad. haddii aad ka heshay fadlan like iyo follow dheh sokeeye 2021. mahadsan.